Conversation. Lesson 1. A sick classmate. wada sheekaysi cashirka koowaad. Arday xanuunsaday. Have you attended school today? Iskuulka ma aaday maanta? Ereyga attend waxaa oran kartaa did you go? Ma aaday iskuulka? Have you gone school today? Maanta iskuulka ma aaday? Ama kan noo qoran hadda ayaa oran kartaa have you attended school today? Maanta iskuulka ma aaday? I attended school today. Did you? Waan aaday. Adigu miyaadan aadin? I wasn't able to attend school because I was feeling ill. Ma awoodin inaan iskuulka imaado maanta sababtoo ah waan xanuunsanayay. Feeling ill. Ill waa sick oo kale. I'm sorry to hear that. Waan ka xumahay inaan taas maqlo ama warkaas aan maqlo. Would you like the assignment from English class? Ma doonaysaa assignmentyadii ama layliyadii English classka? I would really appreciate that. Thanks. Runtii taasi waan kaga mahadcelinayaa, mahadsanid. It is not terrible at all. Dhib ma lahan. No problem oo kale wey. Terrible at all. Wax dhiba ma leh. If you get sick, haddii aad xanuunsato, I will return the favor. Abaalka waan ku celin doonaa ama ixsaankaas aad ii samaysay waan ku celin doonaa. If you get sick, haddii aad markaaga xanuunsato, I will return the favor. Ixsaankaas waan ku celin doonaa. Thanks. See you at school tomorrow. If you feel better, iskuulkan ayaa isku arki doonaa, waad mahadsan tahay beritoole. If you feel better, haddii aad caafimaado.